بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعبك سومالي لاند gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo xisbiga kale mucaaradkaaba iyo shacbiga Soomaaliland ee nabadda iyo horumarka jecel iyo jamaahiirta taageerta mucaaradka dhamaantood waxaan ku baaqaya oo u sheegaya isu soo bixii nabadeed ee muddada sugayseen. waxaan si rasmi ugu dhawaaqaynaa inuu bilaabmayo maalinta sabtida. waxaanu ka dhacayaa goob kasta iyo gobol kasta iyo guri kasta iyo degmo kasta. waanu ka xunnahay wixii maanta ka dhacay Hargeysa. dad doonayay inaanu tacliimaad siino ku saabsan isu soo baxa nabadeed. waanu doonaynay inaanu u warranno ayaa xukuumaddu u adeegsatay xabado nool iyo gaas maas iyo garaac iyo jirdil. hablaa la dilay, xildhibaanaa la dilay, mas-uuliyiin xisbiyaa la dilay, mas-uuliyiin xisbiyada ka tirsan baa oo intaasoo tiradoodu tahay baa la dhaawacay. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani oo xabado noole ku dhaceen ayaa hadda dhakhtarka yaalla. faahfaahinta dhammaanteed waxaa isiin doona guddoomiyaha xisbiga. dadka nabarrada gardarradii ku dhacay waxaa ilaah uga baryay inuu nabad gardarro uga dhigo, inuu caafimaad siiyo. laakiin waxaan u sheegayaa qof kastoo dhibaato u geysta muwaadiniinta Somaliland waa lala xisaabtami doona. maalin baa cadaaladda loo horkeeni doona. ma dhuuman kartid, shacbiguna ku saamixi maayo. shacbiga Somaliland waxaanu doonaynaa mudaharaadkan ku dhawaaqaynaa waa mid silmiya. waa isu soo bax nabadeed oo dastuurku jideeyey oo xalaaleeyey oo aan xeerna joojin karin, cid kalena joojin karin. awooddaas dastuurku siiyey shacbigu xaq bay u leeyihiin inay ka turjumaan waxa ay dareemayaan mar kasta. waxaa ka warqabtaan dhaqaalaheennu halku marayo, maciishaddu halkay marayso, sicir bararku halku marayo, laydhkii halku marayo, biyihii halkay marayaan. biyahana ma Sacuudi Arabiya laga keena, maxaa loo qaaligareeyey? biyada Hargeysa ka soo baxa ceelasha waa la qaaligareeyey. qofkii meel u badbaadsan ma jirto. noloshiisii muwaadinka ciriiri buu ku jiraa. xaq buu leeyahay inuu taa ka turjumo oo shucuurtiisa muujiyo. Somaliland waxay haysatay jid dimuqraadiyad la yidhaahdo iyo doorashooyin. madaxweynuhu saa ka warqabtaa komishankii qof buu tanaasulay. waa ka warqabtaa. waxay noo kala qarsoon ma jiraan. diiwaangelintii wuu joojiyey. doorashadii madaxtooyada muran buu geliyey, laakiin waa dastuuriya, waa inay maalinteeda ku dhacdo. saacad lagu dari maayo. doorashadii ma wado, shaqadeediina ma wado, diiwaangelintii ma wado. guddigii doorashada waa ogeydana waa la kala diray. in dareenkeena aynu ka muujinno oo isu soo bax silmiya ku muujinno baynu xaq u leenahay, waanaynu muujinayno. waxaan ugu baaqayaa ciidanka ammaanka ee nabadgelyada Somaliland. shacbigu waa shacbigiinnii, waa shacbigii aad ka dhalateen, cadowna maaha. waxaa idinku waajibaa inaad ilaalisaan ammaankiisa iyo xuquuqihiisa iyo xurmadiisa. waxaa idinku waajibinaya xeerarka aad ku shaqaysaan amniga. xaqna maaha, saxna maaha, waana gef.
in loo adeegsado muwaadin aan hubaysnayn oo aan qori sidan oo aan xabad sidan oo aan ul sidan in loo adeegsado rasaas nool iyo gaas maas aniga markii ugu horreysay gaas maas lagu rido inkastoo dee indhaha iyo sanka waa iga gashay laakiin waxaan leenahay waxaasi dadka cabsi gelinaya war waxaasi aad iyo aad baa mahadsantihiin